أي أنت جر وقلموت قبل هالمر ما أنت جر قبل وقلموت هالمر أي أوش محيط يعني قلمة أصبح كل شيء واحد قلمة ما لقاه شيء يقول طالع هذا واحد أنا هذا دفاعي ميس هذا دفاعي أنا تري قلمة لقاه شيء شرعة ما وقشها هشيس بكوا هاي إيشيجن وحال idinku eedeynaya kufsi wadareed iyo burcadnimo iyo ku xadgudub inaad ku xadgudubteen qodobada xeerka kufsiga qodobkiisa 7 xeerka kufsiga dawladda Puntland iyo 480 xeerka aqab Soomaaliyeed goobta damiga aad ku gasheen waa garowe 14 bishii 10 bishii 4 bishii 5 iyo aad gasheen 5 bishii 5 waxaad ku gasheen xoog iyo khasab waxaad ku gasheen qalabka isticmaashan oo adeegsateen sida la idinku eedeynayo waa eedeyntu waxa weeye toorey waxaad u geysateen dibtaasna waa dhibanad farax haadi cabdullaahi ina lul maxamed axmed 16 sano jira sida daraaddeed saddex jawaabood midkood waa idin furan dambiga waa galnay ma galin waa galnay dood baan ka qabnaa eedeysanaha yaxyan ku hormaraya yaxya ibraahim ducaale waa kufsatay gabadha مخصبين لكن هاي ساي وقشين هلا بكيت مو أنا مخصبين هاي ساي وحده عن ضد خصبين فيديو مسك يدودوينه أنا إني كان عن هذه إني كان فيديو سكت الدوري هاي ممكن جوانا جرنا إنه والله هو شاكر بيلو سعتي هاي مركب ميس أوتجنا بتاعت على كورونا دي هاي مركب أبار بالتوجني مركب ساني عيد أسرع عني هاي مقرت هاي بكيس كنا ساسو لعب هاي أنت جرو قلمو تقعد هالمر شاكر أنت جرو قلمو هالمر نيكلا دويلك على السنة إنك أول سرعان ولا مش يكرو واقرت واقع هاي الكعس وحي أتقشي واحد قشنا واقش واحد قلنا ما قلنا سؤال شان كوي دي كجوا مرك دمجا ما قش دمجا كفسيقا وان قلي ما أنت جر قبل وقلمو هالمر هاي وكا هذيك إياها إذن أنا إني كان باين marka gool moolaysan mooda joogteen amana wada joogin anoo meesha video ku duuban baa bajaajta meesha soo istaagtay marka bajaaj soo istaagtay waxoogaa taagneyd baa ninkan baa wuxuu tagay bajaajtii markuu tagay waxaa dhacday wiilkii bay iskarteen markay iskarteen igu soo laabo ku yahay markuu igu soo laabo ku yahay hay'adu yiraahdo igu soo noqday wuu sheegay waan israacnay wuxuu ku sheegay inay gabadhii wiil meel joogaan buu sheegay waan israacnay wiilkii waan tagnay kan ninkan baa gabadhii la tagay wiilka maxaa ku samayseen marka xamaana ku samaynay markuu u tagay aduu u kaxaystay waa aniga haddana aan u tagay waka intee saac ahayd aduu waxay ahayd muddo aduu in 4 saacayd ama 5 saac meelaha ahayd waka gabadha ma istaqaaneen marka gabadha ma aan isaqoon waka intee jar u galmood aniga hal okay marka already meeshaani wax ciqaab ma yaala muddo lagu doomiye kiis waa kiis badani ah waa laga heshiiyay markay wuxuna waafaqsan yahay heshiiskaasi almuslimuuna ala shuruudi muslimiintu say ku heshiiyaan waligood Soomaalidu geed hoosta baa lagu heshiin jiray garta lagu kala goosan jiray waxa ula jeedaa heshiis waa laga heshiinaya yaa heshiinaya kiiskani waa madani waxa ula jeedaa waxa ula jeedaa gudoomiye maadaama muwakkiliintaydu ay heshiiskaas ay qiraal ku yihiin waxay qiraal ku yihiin waxay kursigaas ku yihiin burcadnimada kuma ahan kiis kulaba isku jira maxkamadda sharafta leh wada waa kufsadeen marka qiraal bay maxkamadda hadda ka hor sheegeen soo ma ahayn tama hadal baa ka yaala waa kufsi qiraal bay ku yihiin heshiis bay ahaayeen maxaa bal iswaafaji xabal la kufsadeen waa leedahay waa la heshiiyay heshiis bay ahaayeen waa leedahay maxaa la heshiiyay hadii la isku sanayo mudane gudoomiye su'aashaada haddaan ka jawaabo muwakkiliintu aniga waxay ii sheegeen macnihii gabadha marka hore ay kufsanayeen inaysan khasbin waxay ku sheegeen inoo kaadi adigu waxaad sheegtay baan ku weydiiyay haye waxaad tiri waa madani ay waa ka heshiiyeen kufsi bay qiraal ku yihiin saddexda kalmadood ba aday ka yeereen marka saddexdaasi maxkamadda iyo ummadda isu waafaji kiisa kan asal ahaan waa ciqaab laakiin hadda waxa u socda heshiis laba daraf ah ma laga heshiin karaa dibanayaashu طبعا وحي مدني laga heshiin karaa de wixii madani xuquuqaad oo gabadhu xaq u yeelato waa laga heshiin karaa laakiin ciqaabtu maxkamadda u taala wixii ciqaaba
oo ciqaab ay dowladda ka galeen de maxkamadda marsiinaysa u taala laakiin wixii madaniya oo xuquuq gabadha xaqeeda ah waa laga heshin karaa wakaas tiri heshiis bay ahaayeen maxaa ka wada heshiiska su'aasheedii ma aadan ka jawaabin su'aashaada gudoomiye heshiis bay ahaayeen heshiis ifahfaahi hadda muwakkilada ay sheegay markii hore su'aal baa weydiisay intaadan garmaqalkaada bilaabin waxaa tiri gabadhayeen wiilashu heshiis bay ahaayeen saas ay sheegeen muwakkilada isaga ku yiri hadda ilka casoo kale wasaa ku yiri dood sharciga ka qaba markii hore adaa ka dhaxgalay dood sharciga qaba way ku yiri markii hore doodda sharciga waxay ahayd inaysan gabadha khasbin aysan xoogin aysan qahrin hawsha ay diyaar ku ahaayeen laba nin inay gabadh u galmooto abukaat oo ay meel cilaad joogto heshiis ma jira gabadhu sida ay sheegeen bajaaj bay la socotay gabar bajaaj lagala dego ay aqoon dadku goorma heshiiyaan bajaaj lagama degin bajaaj bay la socotay kadibna muwakkilkayga hore yaxya baa u tagay way heshiiyeen maxay ku heshiiyeen heshiiska ma haysaa qoraal ma heshiiska ma hayo laakiin afka iga sheegeen afka ka heshiiyeen maxay ku heshiiyeen bal siiqaday ku heshiiyeen ummadda u sheega hawsha guud bay ka heshiiyeen hawsha guud qabsadaan hawsha maxay macni galmadaas bay ka heshiiyeen wax galma ma laga heshiiyaa iyaga u taala hadda wax aniga hadda difaaci mis adaa difaacaya waxaana tiri galma laga heshiiyaa shareecadu ma ogashahay heshiis bay ku ahaayeen sida ay sheegeen wax qahara iyo wax xooga ma jiraan hadduu dhaawac jiri lahaa ama gabadha wax gaari lahaayeen xafiiska xiraanta waxay keensan lahayd dhaawacii gabadha gaaray bal keeni lahaa wakiilintadu waxay sheegeen inay taleefanka lacag ka shubteen xataa taariikh ima aysan sheegin ma kaa qariyeen eedaas laba eedood isku jira fideogan daawaday muwakiilintaadu waxay sheegeen inay lacag $2 ka shubteen may taaniga ima sheegin kiisku wuxuu isku jira laba eedood eedda koowaad waxa way kufsi wadareed taa qiraal bay ku yimid maxkamadda horteeda dhaca burcadnimada soo maahan burcadnimada waxay yiraahdaan dhaar baa ka xignaa bay ugu yiraahdaan aniga